meeshan aad arkaysaan waa bilaa jabaq. waxaa loogu talagalay inaad hawo jawi ku qaadato. waxaan ku leeyahay geedka xataa waa halkaa iska fadhiisan kartaa ma iska fuuli kartaaba. waxaan ku leeyahay masha Allah tabarakallah weeyaan. waxaan ku leeyahay muuqaalkeena insha Allah tacaala waxaan sii wadan doonaa safarkeena sii wadan doonaa. waxaynu soo eegi doonaa meel dadka bulshada reer Hargeysa ay aad u booqdaan oo haddii maanta dalxiis ahaan oo kale aad ku timaadid magaalada Hargeysa ay tahay inaad booqatid ay tahay ay waajib kugu tahay. waa haddii aad doonaysid meel qurux badan aad booqatid halkii dadka kala booqdaan ah meel aad u qurux badan halkan ninka aad u joogidu degan tahay waa qayb ka mid ah meelaha la booqdo. waxa la idinka rabaa magaceeda inaad soo sheegtaan. halkaa waxa ku yaala masaajid weyn baa ku yaala masaajidka Masjid Al-Ansar baa waa masaajidkan salaada casar ku tukanay. safarkeena hore ayaynu sii wadan doonaa la socda insha Allah. ما شاء الله تبارك الله. waxaan ku leeyahay dhulka aad u qurux badan yahay. hadeer waa kan gaarigeena waan socon doonaa. let's go marka. شقال وردي أهول وردي الليلة حلدي إبو مهدي. ليش هذا كسرني هذا كم ويان الله مستعان. ماشي هذا كوكر حد بدل له ناس وش يكتمل الدنيا هل كان نبيه كتير. ليش هذا كيسان وتاس وحويا قد كاس تلقى سامرة الكاس إنه وحويا ما بيها waxa la raahdaa meeshan isha gubta la raahdaa. waxaan ku leeyahay qof kasta oo doonaya inuu jawi fiican soo qaato halkani way tahay inay maadaan dalxiisayaal far badan baa jooga. waxa koonfur ka xigta magaalada Hargeysa meel aad iyo aad u qurux badan. Allah musta'aan halkan aan joognaa waxa weeyaan waa isha gubka. waa meel runtii ay dad badan ay aad ugu soo dalxiis tagaan weeyaan. waa meel aad iyo aad u qurux badan. halka halkaasaan ay ka dambeysana waxa ku jira biyaha ku jira waxa weeyaan waa tug baa mara doox baa mara marka dooxaas iyo biyihiisaas iyo dhulka quruxda badan laba ay maxay talo soo dalxiisa. waxa kale oo idinku daraya waxa weeyaan meeshan ma aha lacag laan laguma soo galiyo free ku soo galimaysid. haddii markaad soo galisad ala qof iyo waxa laga ka qaadi doona 10,000 oo shilin oo soo tala galisay. hada waa dhul banaan laakiin dhul aad iyo aad u qurux badan weeyaan. dad yoogis ka lahaa ugu tala galay iyo ugu tala galay lacagtaasi in dadka ay intii day ka dhab tahayna ay yimaadaan xashiishka iyo waxyaabahaasina laga nadiifiyo. wadinka arkay imka biyahaas meesha laguma may noqoteen meel maxay tahay jawgeedu degan yahay may noqoteen haddii aan xashiishkaas iyo waxyaabahaas aan laga nadiifin lahayn sidaas oo dhan uma qurux badateen. dhir asalana way ku taalaa masha Allah weeyaan. wadinka nagula raaxaysta jawiga. waxaa aan siri qiyaastii ilaa 500 ilaa wuxuu jiraa 2 qarni mid dareemay soo soco. meel halkan waan iska dhiganay gobasheedii ilaa xagga dambe waan tagi doonaa dadku ku sii socdaan. in xaggana waan gobasheedii iska dhiganay marka waa ku fi gaaribe meeshan dhir badan baa ku taalo cajiibe halkaas aan fadhinaano.